السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan isolbo muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaarayba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan bal dhowr qodob oo kala duwan aan markaasi aynu ku fiirino marka ugu horeysa waxaan fiirin doonaa aflagaadadii ugu culusayd oo madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu ku soo qaaday Soomaalida dalka Soomaaliya iyo waliba xildhibaanad Ilhaan Cumar marka qodobka ugu horeeya waxaanu fiirin doonaa muxuu Trump sheegay maxaase aflagaadadiisa aynu markaasi ka fahmi karnaa qodobka labaad waxaan doonayaa inaan ku fiiriyo xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ayaduna dhankeeda lagu furay tashuush xoog leh oo la leeyahay baaritaan ayaa lagu sameynayaa si la mid ah qaabkii loo handadayay governorka gobolka Minnesota iyo waliba duqa magaalada Minneapolis sidii oo kale ayaa Ilhaan waxaa la leeyahay lacag bay lunsatay waa in markaasi baaritaan lagu sameeyo waliba heer federaal arrintaas maxay tahay maxaynu ka fahmi karnaa marran baa inay lacag dhacday iyo waxyaalahaana waynu falanqeyn doonaa waana dul istaagi doonaa ugu dambeyntii waxaan muuqaalkan uga hadlayaa ahna qodobkayga ugu muhiimsanba waa in dowladda Mareykanku ay soo saartay go'aan la yaab leh oo markaasi lagula soconayo dhaqaalaha ay dirayaan qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota xawaaladaha Soomaalidana waxaa loo keenay form loogu talagalay inay Soomaalidu ay buuxiyaan oo lagula soconayo qayb ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota marka muxuu foomka yahay waxa ku qoran maxaynu ka fahmi karnaana waa qodobkeena ugu dambeeya waliba foomkii oo xawaalada ka soo qaaday ayaa markaasi hor yaala oo aynu dul istaagi doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan iyo walba muuqaalkaygu marka idiin soo gaarayba haddii aan bilaabo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa mar kale duulaan afka ah oo aan horay noociisa loo arag ku soo qaaday Soomaalida dalka Soomaaliya iyo waliba xildhibaanad Ilhaan Cumar hadaladiisa haddaan qaar ka mid ah aan dul istaago Donald Trump hadalka uu Trump ku caayay Soomaalida ayaa wuxuu ahaa hadal markii hore ka soo bilowday inuu Trump dadka reer Mareykan uu la wadaago qaar ka mid ah sawirada dadkii ay ciidamada ICE ay markaas soo qabteen marka marba nin buu soo qabanayay marba qof buu soo qabanayay waa dambiile waa dadka adduunka ugu xun dalkeen inay joogaan ma ahan. These are all out of Minnesota, just Minnesota. I say, why don't you talk about that more? Because people don't know. Do you want to live with these people? International murder. These are people that are living. laakiin markii ugu dambeysay ayuu Trump wuxuu sheegay in dadka noocaaya la soo qabqabto ayaa waxaa diidaya wiir dad kale oo markaasi qaylinaya oo banaan baxaya asagoo ka hadlaya dadka reer Minnesota oo markaasi sida weyn uga hor imaadsan ciidamada ICE wuxuuna yiri dadka qaylinaya ee difaacaya dadka tuugada ah marna kama ay hadlayaan buu yiri 19 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo dalka Mareykanka laga dhacay. Now, Minnesota, the crime is incredible. The financial crimes are incredible. And the problem is because of the agitators and insurrectionists, whatever you want, troublemakers, but they're paid agitators and insurrectionists. Nobody talks about the fact that $19 billion at a minimum is missing in Minnesota. lacagtaasna inteeda badan buu yiri waxa dhacay buu yiri waa Soomaaliyaanis ma garanay goorta Soomaaliyaanis anaga naloo bixiyay Soomaalida Soomaali baa la yiraahdaa anagu Soomaaliyaanis lama yiraahdo marka ninka xataa nacaaya magaceena xataa ma yaqaano si walba ha ahaato Trump wuxuu sheegay Given to a large degree by Somalians. They've taken it. Somalians, can you imagine? si walba ha ahaato Trump wuxuu sheegay in Soomaalidu aysan ahayn dad shaqaysta dadka kale dalka Amerika yimaadaan way shaqaystaan buu yiri laakiin Soomaalidu ma shaqaystaan buu yiri waxayna ka yimaadeen buu yiri meel aysan lacag oolin weligoodna lacag maysan arag nololna maysan arag dowladna weligood maysan yeelan buu yiri wax dal ah oo Soomaaliya la yiraahdana ma jiraan buu And they don't do it. A lot of very low IQ people, they don't do it. Other people work it out and they get them money and they go out and buy Mercedes Benzes and they come from here, they have no money. They never had money. They never had a life. They never had a government. They never had a country. Because there's basically no country. Somalia is not even a country. kadibna Mareykanka ayay yimaadeen ayagoo shaqaysan oo aan dhiigooda cuninin ayayna taajirin noqdeen buu yiri maadaama ay lacagtanada ay markaasi ay boobayeen Just about the worst in the world. They come here and they become rich and they don't have a job. wuxuu intaa ku daray oo uu yiri waxa la ii sheegay buu yiri in Ilhaan Cumar
dhaqaalaha ay haysato uu markaasi gaarayo ilaa iyo 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah xildhibaanad tuuga ah buu yiri. I was told that Ilhan Omar is worth $30 million. She never had a job. She's a crooked congressman. haddaba maxaynu ka fahmi karnaa aflagaajada ka imaanaysa madaxweynaha Mareykanka? ma aqaano inaad u fiirsataan iyo in kale, laakiin mar walba oo Trump uu Soomaalida ku soo qaado duulaan afka ah waxaa la kiciyaa oo warbaahinta oo dhan ay kicisaa buuq weyn aflagaado Soomaalida ka dhana. waana wixii aynu ka baranay aflagaadooyinkii la soo dhaafay oo Trump warbaahinta u soo marinayay dadka Soomaalida ah ee dalkan ku dhaqan iyo weliba dalka Soomaaliya. mar walba waxa uu bilaabanaa ciyaalka kaamirooyinka soo yaaca ice baa soo yaacda waxaa la bilaabaa dhaqdhaqaaq Soomaalida ka dhana isla markaana waxaa la isku Alert: Ilhan Omar under investigation after racking up millions while she was in Congress. waxaana la leeyahay Ilhan waxaa lagu wadaa baaritaan halka ay 30 milyan oo dollarka Mareykanka ay ka keentay. ma arkaysaan awal dacaayadu waxay ahayd xildhibaanad Ilhan waxay guursatay walaalkeed dalka Mareykanka waxay ku keentay inay isqaban. They have a representative, Ilhan Omar, who they say married her brother. It's a fraud. Mentioning the Daily Mail reporting from 2020 that Ilhan Omar married her brother to get into the country. This was last week. Take a listen. Pashaas waa istaagi weyda caga ay ku istaagtay waa loo waayay markaan fuusta kala la soo riixaya oo maxaa la leeyahay xildhibaanad Ilhan Omar ayaa 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah uu dhan yahay maxaa la yiraahdaa assetka ay haysato ama net worth-keeda. markaysa marka waa in investigation lagu sameeyaa isla investigationka markii aynu fiirino ay dowladda Mareykanka ku hanjabayso oo Ilhan ay ugu hanjabayso waa midkii maalmihii la soo dhaafay loogu hanjabayay Tim Walz iyo Jacob Frey waa mayorka iyo governorka gobolka Minnesota oo ay ka hadleen. marka cid walba uu Trump u arko inay ka hor imaadsan tahay inay diidan tahay shaqada iyo dhaqdhaqaaqa uu ka wada gobolkaas waxaa loogu hanjabayaa baaritaan ayaa lagu sameynayaa musuqmaasuq bad qayb ka tahay waa handadaad ama waxa loo yaqaano intimidation. markaysa uma malaynayo in Ilhan Omar haddii ay intaasoo kala waxa ay ku hayaan inay xilligan ay sii joogreed oo malaynayo mar hore ayay xiri lahaayeen oo ay qabsan lahaayeen laakiin wax alla waxa laga sheegay oo dhan waa fake news iyo been. markaysa waayo hadday caddayn ku hayaan do you think inay banaanka sii joogi lahayd oo malaynayo. dhanka kale waxaan isleeyahay Ilhan in la handado mayay ku aamusi doontaa aydan oo malaynayo. Somalis are not terrorizing this nation. We are helping it thrive. Somalis have always seen themselves as a fabric of this nation. So not only are we not going anywhere, we are not going to allow anybody to make us feel less Minnesotan or less American. Ilhan waxa ka muuqata geesnimo, waxa ka muuqata run sheegis, waxa ka muuqata inay doonayso inay dadkeeda iyo cirdigeeda iyo sharafteeda ay difaacdo wayna ku maadsanta. matalaada Ilhan ay matalayso xaafadda ay xildhibaan ka tahay iyo mid ay magaca Soomaaliyeed matalaysaba waa mid runtii xaq ah oo mid aan ku garab taaganahay. marka qodobkaas intaasaan oga baxaya waxa Ilhan laga sheegay waa been hadday wax ku hayaanna Ilhan xilligan ma soo gaarteen mar hore ay xir lahayn. qodobka ugu dambeeya markaan fiiriyo ahnaba qodobka ugu muhiimsan ee muuqaalkanaga ayaa waxay tahay shalay baa la isoo wacay waxaa la ii sheegay in xawaaladaha Soomaalida form loo qaybiyay formkan ayaa la ii sheegay inkastoo hadda aan la imid. marka waxaa la yidhi Xuseen ma ka warqabtaa in xawaaladaha loo sheegay inay form ka buuxiyaan qof kasta oo Minnesota jooga oo doonaya inuu lacag u diro meeshuu rabo u diro laakiin 3,000 wixii ka badan ama 3,000 lacag gaarayso qofkii diraya oo Minnesota jooga in looga baahan yahay formkan la buuxiyo formkan uu yahay form dhanka dowladda aadi doona. kadibna waxaan go'aansaday inaan dhowr xawaalad oo kala duwan aan tago oo aan ka soo print garaysto formka la sheegayo aan fiiriyo si balan u fahmo. formkii baan soo helay formka markii aad fiirisaan ilaa 5 qodob oo kala duwan ama 5 qaybood ayuu u qaybsan yahay 1 2 3 4 ilaa 5 uu qaybsan yahay. qaybta ugu horeysa oo formkan laga buuxinayo ayaa waxa iska leh qofka senderka qofka lacagta diraya sida meesha aan ka arkaysaan. macluumaadka looga baahan yahay ayaa waxa ka mid ah magaciisa, adresskiisa, goorta uu dhashay iyo telephone numberkiisa. qaybta labaad ee uu formkan ka kooban yahay
ayaa waxay tahay identification informationkiis ID-ga uu dhiibayo nooceeya oo xawaalada u dhiibayo oo lagu garanayo qofka lacagta diray inuu asaga u yahay xawaalada muxuu u dhiibayaa muxuu u dhiibayaa driver license muxuu u dhiibayaa state ID passport buu u dhiibayaa mise wax kale u dhiibayaa in la ogaado nooca ID-ga oo uu dhiibayo iyo waliba in la qoro ID numberkiisa qaybta saddexaad waa recipient-ga iskale ama qofka lacagta loo diraya iskale waxaa ku qoran waxa qaybtaan la doonayaa in la buuxiyo adresska qofka lacagta loo dirayo numberkiisa relationshipka kala dhaxeeya ma family ba ma friend ba ma ganacsi ba ka dhaxeeya mise sabab kale ayaa mataqaanaa lacagta loo diraya qaybta afaraad markaad fiiriso weeye qaybta ugu muhiimsan waxaa ku qoran source-ka lacagta iyo sababta loo dirayo xagee lacagtan laga keenay ama qofka diraya lacagtan xagee ka keenay sababtu u dirayana maxay tahay haddaynu fiirno qaybta hore ee leeyahay qofka lacagta xagee buu ka keenay ayaa waxaa ku jira list ma employment ba ma personal saving ba ma lacag adigu aad meel dhigatay ba ma business lacag mataqaanaa uu ku shaqeynayo ama lacag business ba mise waa government benefit mise dowladda ku siisay oo lacagtan dabcan SSA-da iyo dadka dowladda ay siisoo kala maxay tahay waa inaad qeexdaa haddana waxaa lagu weydiinayaa waa maxay sababtaa u dirayso list kalaa ku jira ma family support ba oo qoyskaaga doonaysa inaad ku support garayso ma lacag living expense abaad u diraysaa oo dad baa ku noolaanaya qoys oo kale livingkooda ma lacag waxbarasha ma lacag caafimaad ba soo lacag ganacsi shantaas mid baa la rabaa inaad sheegto foomkan markaa shanta qodob ka kooban ee la yiri Minnesota basa buuxinaysa siday xawaaladuhu ii sheegeen ayaa wuxuu ila noqday wax iga weyn qofka Ohio jooga ee 5,000 diraya foomka inuu buuxiyo kuma qasban kan Seattle jooga iyo Washington ee 10,000 diraya inuu foomkan buuxiyo kuma qasban kan Maine jooga iyo kan California jooga iyo kan gobolada kale Mareykanka jooga kuma qasban kaliya waxaa ku qasban inuu foomkan xawaalada ka buuxiyo waa dadka Minnesota degan ee diraya lacagta ka badan 3,000 ama 3,000 gaaraysa waxaa marka meeshaas aad ka arkaysaa inay tahay beegsi gaar ah oo la beegsanayo dhaqdhaqaaqa lacageed ee dadka degan Minnesota su'aalaan weydiiyey dadkii xawaalada waxay ugu yiraahdeen annaga dadkii madaxda ahaa naga sarreeyay baa foomka noo dhiibay waxaana lagu yiri qof kasta oo Minnesota jooga ama Minnesota degan haddii xataa adoo Minnesota degan aad Ohio joogto oo aad rabto inaad lacag ka dirto oo laysankaaga iyo adresskaaga uu Minnesota yahay foomka waa buuxinaysa qof kasta oo degan Minnesota waa inuu buuxiyaa meeshuu doon lacag ka diray halkaas marka waxaad ka arkaysaa inay beegs tahay wax macluumaad oo inta dheer xawaaluhu imaysa sheeginin laakiin foomkii markii aan dib u fiiriyey oo aan waqti badan geliyey ayaa waxaan ogaaday inuu foomku yahayba foom ciwaan leh waxaana ku qoran geographic targeting order baa ku qoran marka waa dhaqdhaqaaq lacageed oo la doonayo in lala socdo oo meel mucayyim ah weeye macnaheedu kadib baaritaan baan ku sameeyey waxaan ogaaday in wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanka ay marar kala duwan dhaqdhaqaaqyada noocan ah ay meelo kala duwan ka samaysay muddooyinka hadda la soo dhaafay oo dhan sidaa daraadeed haddana waxaan dib u raadiyey ma wax cusub baa jira oo ay dowladda Mareykanku soo saartay oo orderkan ah oo Minnesota ka dhana kadibna waxaan ogaaday in 13 January 2026 oo bisha hadda aanu ku jirno asbuuci hadda la soo dhaafay in dowladda Mareykanku ay soo saartay ama wasaaradda maaliyadda dowladda Mareykanku ay soo saartay go'aan ka dhan ah county-ga la yiraahdo Hennepin County iyo waliba Ramsey oo asna ka tirsan county-ga la yiraahdo Anoka County oo labaduba ay Minnesota yihiin in labadaas meelood ay dowladda Mareykanku si gooni ah ay markaasi u taagad garaysatay waana labada meelood oo ay Soomaalida Minnesota ugu tirada badan yihiin Hennepin County-ga la yiraahdo waaba county-ga ay Ilhaan Cumar xildhibaan ahaanta ay ka soo gasho waxay Ilhaan Cumar xildhibaan ka tahay districtiga shanaad ee county-gan marka waaba meesha Ilhaan Cumar ay ka soo baxdo county-ga ay ka soo baxdo weeye Hennepin County markaysan Ramsey-gana waa mid Ramsey-guna asagoo county ma ahan
laakiin waa xaafad ay Soomaalidu degan yihiin kana tirsan county kale oo aan oo kale yiraahdo iga raali ahada reer Minnesota ma adan qalday qaabkan ugu dhawaaqayo magacyadan si walbaba ha ahaato waa go'aan marka dawladda Mareykanka ka soo baxay oo la doonayo in meelaha ay Soomaalidu ugu tirada badan yihiin ee gobolkaasi Minnesota markaas la socdo sida ka muuqata amarka wasaaradda maaliyadda ka soo baxay 13 January waa xog aan ka warqabinin laakiin tixraaceeda aan ka soo helay markii aan foomkan helay way sida daraadeed qof walba oo Soomaali ah oo deegaanka degan waa inuu artaasi uu ka warqabaa maxaa loo fasiri karaa baan ku soo koobaya waxaa loo fasiri karayaa oo sawirka laga qaadan karaya ay tahay waa in lacagihii badnaa ee Soomaalida lagu eedeynayay ma jiraan mise ma jiraan oo kama jawaabi karayo lacagihii Soomaalida lagu eedeynayay inay dhaceen ay dawladda Mareykanku waxay isleedahay dhaqaaqooda hala socdo haddii dalka laga bixinayo hala qabto amarkan markii la fiiriyo sida uu dhacayo qaabka ayuu noqonayaa ma doonayo intaas ka badan inaan hoos ugu dhaco waxay arrintan noqon karto laakiin picture-ka iga soo baxay waxa weeye lacagta la leeyahay Soomaalida dhacday ay dawladda Mareykanku waxay isleedahay in dalka laga bixinin sida daraadeed ayaa labadan county oo Soomaalidu ay ugu tirada badan yihiin dhaqdhaqaaqa lacageed ee laga diraya loola soconayo meel kale oo lala soconayo ma jirto Ohio lama soconayo Seattle lama soconayo Maine iyo meelaha kale waa labadaas meelood oo kaliya waana sababta foomkan xawaaladaha loogu qaybiyay qof kastoo lacag dirayana waa inuu ogaadaa inuu foomkan u buuxinayo haddii aad dirayso lacag ka badan 3,000 ama 3,000 gaaraysa intaasaan muuqaalkan kusoo koobaya intaan dib isaga soo laabanay waxaan idinka tagay seen oo dirum asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu